مسؤولينta wadanka Talyaaniga ayaa jasiiradda Sicilia ku taala badda Mediterranean-ka waxay kaga dhawaaqeen xaalad degdeg ah sababtoo ah dhibaatooyinka baaxadda leh ee ka imanaya tahriibayaasha ku soo qulqulaya xeebaha jasiiradda. Dhawaaqa xaaladdan degdeg ah waxaa la sheegay in looga gon leeyahay in la xoojiyo isla markaasina xoog la saaro hawlaha gurmadka ee taakulaynta iyo waliba badbaadinta tahriibayaasha ku soo qulqulaya badda Mediterranean-ka kuwaas oo boqolaal ka mid ah ay ku haligneen xeebaha wadanka Talyaaniga kuwaas oo ka soo baxsanaya colaadaha ka jira wadamo ka mid ah qaaradda Afrika iyo wadanka Suuriya. Mas'uuliyiinta Talyaanigu waxay sheegeen in ku dhawaad 370 qof oo kale oo tahriibayaal la badbaadiyay maalintii Salaasadii kuwaas oo laga soo badbaadiyay 3 doonyood oo kale oo ku cadibnaa badda dhexdeeda kuwaas oo ka soo kicitimay wadanka Liibiya. Dadkaasi dhamaantoodna waxaa loo wareejiyay jasiiradda kale ee Lampedusa. Jasiiradda Lampedusa waa marinka ugu horeeya ee tahriibayaasha faraha badan ee ku qulqulaya qaaradda Afrika. Xaaladdan degdeg ah lagaga dhawaaqay jasiiradda Sicilia waxay ka dambeysay maalmo ka bacdi markii Talyaanigu ay sheegeen inay kordhinayaan ilaalada xeebaha iyo waliba badda Mediterranean-ka kadib markii halkaasi ay ku dhinteen boqolaal ka tirsan tahriibayaasha ku soo qulqulaya qaaradda Yurub.